xaflad ballaaran oo lagu taageerayay maamul sameynta gobolada dhexe ee Mudug iyo Galgaduud ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Birmingham ee wadankan Ingiriiska. xafladaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan Ingiriiska iyadoo ay saldhig u ahaayeen jaaliyada Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolada dhexe. xafladaasi ayaa inta badan waxaa looga hadlay sidii ay u midoobi lahaayeen gobolada dhexe iyo waxtarka ay u leedahay in maamul loo sameeyo. dadkii halkaasi ka soo qayb galayna hadaladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan. caawa waxaan halkaan isugu nimiday taageerada maamul sameynta Mudug iyo Galgaduud. waxaa kaloo u mahad celiyaa oo ilaahay ka sokow gabdhaha oo suurto geliyay shirkan inuu si degdega ku suurto galo in la qabto oo aan la'aantood la qaba lahayn. وآد ياد أرين محوها هاي آد وناكسن وأرين للسجاي واي واحد بدن على السجاي وحكجري دولة قبلديو أو هرو أجر أو شقيناي وحن رجينا دولة قبلديال كاس هولها أي محوها أي سوق بتاعنا أي جنا إن محوها هاي آد لوجو تحقليو أو آد محوها هاي لوجو تاجرو سوتك هدرتان لسوتك أو لبض قبلك جنا آد ياد ونسود وين هدو بدمو. sidaad ogtihiin maamul goboleedyada la sameynayay maamulkaanu haddii uu hirgalo waxaa ka dambeeya waa hal maamul aan u malaynayaa oo noqon doona Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe. gobolada dhaxaan waanadaan gaar u leeyahay niman yahow dhambaal gooniyaan idin garowsiine gaashaan dhigii baa tihiin gibilka Soomaale guul baad ka keentaan xilkaad gurada saartaane haddii federaal loo galbaday ama se loo guuray gobolada dhaxana la isku yiri gaar isugu leexda mar haddii gudoonkii la dhigay la isku gacan qaaday Mudug geesihiisii haddii la isku wada geeyay Galgaduud haddii loo fadhiyo galo la soo doortay garwadeenadii dawladda aad garabsanaysaane xasan sheekh go'aankiisu waa guusha qarameede gacmaha isqabsada in gobolada dhexe la dhiso oo maamul fiican loo sameeyo oo dadka degan ee qoomiyadaha kala duwan ee Soomaaliyeed ay maaragtay isu tanaasulaan oo ay maamul wanaagsan sameystaan oo noqda mid lagu daysado mid aksaan u noqda in lagu daysado oo macnaha sida ay shukri uga dhawaajisay dadkii gobonimo doonka iyo dadkii halgamaaga ahaa dadkii waxgaradka ahaa intooda badan gobolada dhexe ka soo jeedeen intoodii badnayd. anigu waxaan ku dari lahaa inaan mahad celiyo marka ugu horeysa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galgaduud iyo Mudug ka jira iyo hogaamiyaasha kale ee deegaankaas ka dhisan oo gartay aqbalay dareemay baahida loo qabo in la midoobo. dowladda federaalku waxay higsanaysaa in goboladii mataqaanaa oo cid walba waxa weeye markaas si mataqaanaa adiga doorasho xor iyo xalaal mataqaanaa loo helo goboladii dad isku aadano mataqaanaa yani si markaas isku raaci karaan isku raacsiyo kadibna loo sameeyo doorasho 2 sano hadda kana ayaa loo ogol leeyahay mukarsidiina saas oo ogaadeen. marka anaga faa'iidadaas waa inaan qaybteena ka qaadanaa dawladda la dooro doono haddii anagoo soo kala daasan la gaaro xaqeena sidii loo cuni jirin baa loo cunaya haddana. waxaan kaloo taageeraynaa dawladdeena sharafta badan ninka madaxweynaheena ma sha Allah far kaligeed fool ma dhaqdo wuxuu u baahan yahay qof walba garab uu u baahan yahay haddii cayayaan geeska ka cunaayo oo aadan haysan garab meel ma gaari kartaa. waxaan u aragnaa kaliya hadirtan in uu xal yahay in la isku keeno lagu heshiiyo kadibna aan macnaha ugu gudubno asxaab siyaasadeed taasaan insha Allah duu ilaahay yiraahdo lagu dhaqi doona wadanka hadduu alla idmo. meesha maanta u baahan midnimadu waa gobolada dhexe danta qofka yaan la eegina danta dadweynaha la eego dan qabiil yaan la eegina danta dadweynaha la eego dan shakhsiyaan la eegina danta ummadda Soomaaliyeed la eego. waxaad tihiin horseedkii ummadda Soomaaliyeed haddaad tihiin gobolada dhexe qabiil ma leh. Yusuf Garabay warbaahinta qaranka Soomaaliyeed London.